بسم الله والحمد لله. إن شاء الله beriga waxaan qaadaynaa qayb ka mid ah casiradeennii noo socday ee ahaay baro sameeyaha qur-aanka kariimka. beriga waxaa miidka noo saaran afalam yasiiruu fil ardi. afalam yasiiruu qur-aanka waxay kusoo aroortay ilaa 4 meelood. waa suuratul qaafir, suuratul naasgaab ama xaj dada u yaqaano, suuratul alladii ama muxamed, suuratu yuusuf. afartaas suurado ayay kusoo aroortay qur-aanka. aayadan suuratul naasgaab ama suuratul xaj bilowga ayay uga soo aroortay. qaafir sidoo kale aayad bilowgeeday kusoo aroortay. muxamed sidoo kale aayad bilowgeeday kusoo aroortay, laakiin suuratul yuusuf aayadda bilow ma ahan, dhexday kasoo gashay. marka maadaama afalam yasiiruu ay tahay, waxaan ku khasbanaaday inaan dhammaystiro. marka aayadaha raqamkooda amba lambarkooda idinka raadsada si aad u shaqaysiin oo idinka laftirkiin aad wax u qabatiin. laakiin afartaas bisin ayay kusoo aroortay afalam yasiiruu fil ardi. waxaana lagu soo koobaa oo aan kusoo jamciyey kafarallaahu xaaji maxamed yuusuf. kafarallaahu xaaji maxamed yuusuf oo kafara waxaan kasoo qaatay kaafir, xaaji waxaan kasoo qaatay suuratul xaj, muxamed waaba taqaanin waa alladii, yuusufna waa suuratul yuusuf. afartaas magacaas ayaan kusoo gaabshay. cashirka labaadna waa rasuulun mubiinun, rasuulun kariimun, rasuulun amiinun. saddexdaba waxay ku jiraan bisinka la yidhaha walkitaab gaab. walkitaab gaab saddexdaas laga yaabay dadka inuu yaqaanin magac kale. anugu walkitaab gaab aanu aqaanaa, laakiin magacaha caadiga ah oo kutubka ku qoran dukhaan miya, allahu aclam, ma sheegi karo. laakiin anugu walkitaab gaab aanu aqaanaa. waxaan wadaa fargurigiaan wataa oo laisoo siiyey, raalli ahaada. rasuulun mubiinun, rasuulun kariimun, rasuulun amiinun, saas ayay isugu xigaan. bilowga bega ugu horeeya ku jiraan ayaan filaa, idinka raadsada. waxaan kusoo gaabshay ereyga la yidhaha maka. maka oo meesha la tago meelaha ugu fiican ah. sidoo kale abootada iyo magaceedana waa la dhihi jiray maka. mubiinun maka waxaan kasoo qaatay magaca ugu afka xarafka ugu horeeyo, kariimun xarafka dhexaad, amiinun xarafka ugu dambeeyo. intaasaan kusoo gaabshay. wixii aad ku aragtiin oo cilad farsamo ah, insha allahu tacaala waxaad igala soo xiriiri kartiin emailkayga ah gacal226gmail.com. waxaan idin rajeynaa maalin farxade insha allahu tacaala. dhegeysi haboon.